Bukhari iyo Muslim, Imaam Axmed iyo Imaam Shaafici, Thomas Edison iyo Albert Einstein. Ma garanaysaa waxay dunidu ilaa hadda magacooga u xusto? Ma garanaysaa sababta aan ilaa hadda magacooga u ognahay? Ma waxay kula tahay keligood inay wakhtigaa noolaayeen? Maya, waxay ahaayeen dad hadaf iyo ujeedo leh ay u nool yihiin, kana dhabeeyey hadafkoodii. taariikhda dunidan maaha wax kale balse waa taariikhda dadkii guulaystay, reebayna raadkooga ilaa haddana aan xusno. hadaf waa shay aroortii markaad soo kacdid kugu qasbaya inaad samaysatid qorshe aad ku socotid maalinka. hadaf waa shidaalka nolosha. haddii aad rabtid inaad ku noolaatid nolol farxad iyo raynrayn leh, reebtidna raadkaaga markaad dunida ka tagtid, waa inaad leedahay hadaf iyo ujeedo aad u nooshahay. haddaba sidee baan u samaysan karaa hadaf iyo ujeedo aan u noolahay? waxaan maanta ku bari doonaa, aan wada baran doonaa 4 tallaabo oo aan ku samaysan karo ujeedo iyo hadaf aan u noolahay. tallaabada u horeysa ayaa waxay tahay, micno caynkee ah ayaad ka haysataa guusha? maxaadse ka dhabayn kartaa? guusha micnaheed u haysatid maxay tahay? guusha ma waxaad u taqaanaa inaad lacag badan heshid? ma inaad farxad heshid? ma inaad magac heshid? haddaba waa inaad caddaysaa macnaha aad ka haysato guusha. goorma ayaad dhihi kartaa waan guulaystay? maxaadse ka dhabayn rabtaa? waa maxay shayga hadafka kuu ah? haddii aadan ogayn shayga aad u nooshihid iyo ujeedada aad u noolaan kartid, isweydii 3 su'aalood. maxaad rabtaa inaad noqoto hadhow 10 sano, 15 sano, 25 sano kadib? maxaadse jeceshahay in lagugu xasuusto berri ka maalin? su'aasha 3aad, bulshada maxaad la jeceshahay balse maxaad la jeclaan lahayd bulshadaadu inay kaa barato? 3daas su'aalood markaad isweydiisid, maxaa kuu soo baxay? tallaabada labaad aad ku samaysan karto hadaf waxay tahay, tax dhammaan waxaad nolosha ka rabto. su'aalihii markaad isweydiisid, tax dhammaantood, kadibna qaybi siday u kala mudan yihiin iyo u kala muhiimsan yihiin. u tax. markaad dhammaan taxdid waxyaabaha aad nolosha ka rabtid adoo u kala horraysiinaya siday u kala muhiimsan yihiin, kadib waxaad samaynaysaa tallaabada 3aad, taasoo ah in aad noloshaada ku salaysid hadafkaaga, aadna u noolaatid ujeedo xadidan oo cad. waa tallaabada 3aad. midda 4aad waxay tahay, keliya hadaf la qoray micno ma samaynayo. waa in aad joogtaysaa ficiladaada, aad qorshe u samaysaa aad ku soconaysid maalin kasta. warqadda aroor kasta soo qaado ee hadafkaaga ku qoratay, kadibna fiiri maxaa ka dhaboobay, maxaase ii dhiman, maxaanse sixi karaa, maxaase iga qaldan. haddii aad 4taa tallaabo aad si fiican u dhegaysatay, tijaabi. kadib waxaan hubaa inay kuu soo bixi doonaan waxyaabo badan oo kuu horseedi kara inaad samaysatid hadaf. ugu dambayntii, ogow inaad noolaatid muhiim maaha, balse waxaa muhiim ah inaad leedahay hadaf iyo ujeedo aad u nooshahay.